markaas aan la xidhay buudi kabahaygi meel aan iga fogeeno halkaas aan dhigay buudi waa kabeero cusub oo sandal ah salaadii mar alle markaan xidhay baan arkay buudi kabtaydiyo gacan sii qaadayso iska waday buudi salaadaydi إذا الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركه. جماعاتك الدعوة وكون جولات كسميان مقتهم لها مقاحية لقو قيلايو جماعات باكستانيين مركا نوتي من ديو وضي واكوين مركا أنكم بقول إسلام باني محادنا قصود دونتين بودي وعند بقول إسلام باتين إن باكستاني عالم وحكمة بدن بوها ومفتيح ومدارس أفر بدن هي وعند بقول مسلم باتين ونقنا وكفر أحسن هي لكن بقول مسلم باتين محاد كبيهين المساعد كدمدي سوق صداف ويدين بكوي كما هي الله قال عليها قبل شيء كده نبى مالين مساجد بانقلي بيودي جمعي هراء إقبحي جمع اللباد بان مركا أركبودي مركا مد أنو إيجاجي مساجد وينو جامع أبوها وجموتو كي الله مد بان مركا يقولي جمع لبدا قفا إمكا اسكو حدته لحدو مركاس أنا لحد بيودي كباهيجي ميل أن يقفوغينو هالكاس أن دقي بودي وكبيرو عصب وصندلا صلاة دي مرة اللي مركا حدي بان أركبودي كبتيو gacan sii qaadayso iska waday buudi salaadaydi safkiina uu dheeraaday salaadii mar alle markaan salaamu calaykum ka baxay ayaan kabihii baan waayey markaasa waan eegay waan waayey qofka sii baxay waan waayey ku kalo igu ag tukanayay ana kabahayga ma hayo malaha 5-6 qof baan noqonay safka oo kaliya dadkii kabahogi waayey nin markaa masaajidka xaaris ka ahaayo ilaalinaya xagga dambe maxaa ni helay warshadeedaba kabi wala naga qaaday markaasa nin baa yiri allabadan dadka way sareen buudi Allah ka qabto kii ku tujinayay kii ni tujinayay iyo kii ku tilmaamay shaqa ka wada dhaxaysay buudi xaga dhaxaysay bal sheeg wala fiirso iimaankeena halka uu maraya ka warrama in masaajidka dhexdeeda dadka loo rakibo ruwaayada loo rakibo kaba dadka lagu xado داخل المسجد marka aad baa dadku maanta uga fogaadeen diinta barashadeedii haday tahay oo laga fogaaday ku dhaqankeegina lama waayaba muddo 7 sano ku dhow ama 8 sano ama qarniba gaarsi dawladii nabi maxamed uu taagay waxay ku taagnayd inuu qofka kale walaalkii xaqiisa iska ilaaliyo dawlad booliis ka dhex shaqeynay ka warrama jeel dadka lagu xidhanay aan lahayn maxkamadii cid timaada la waa laba qof oo isaysata waa la waayay qof dilay isaga iskeenaya qofka waxaada isaga iskeenaya qofka dambi ka dhacay isaga iskeenaya maalintii la yiraahdo wasaariqu wasaariqatu faqta'u aydiyahuma xukunka maalinta uu soo dagay ilaa 4 qarni bay culimadu yiraahdeen marka dib loo soo noqdo dadka tuuganimo gacanta looga jaray 15 ruux oo kaliya noqdeen baa la yiri 400 oo sanadood dawladda islaamka marka taariikhdeedii dib loo eegay dadkii tuuganimo intoo la soo qabtay tuuganimo gacan loo gooyay tuugnimo gacanta looga gooyay markii la tiriyay 15 ruux oo kaliya noqdeen lana cadaaladu waa ilaahay weeyaan ta ilaahay hadii la raaco adduunka dhiba ka dhicmayso maantana tuulo yar baa tagaysa tuulo waxa lagu leeyahay kabihii masjidka nin baa ka xaday waa tuulo 200 qoys ku nooshaa lagu leeyahay kabahaaga bac ku soo rido xagga hore dhigo marka aad baa dadku maanta uga fogaadeen diinta barashadeedii haday tahay oo laga fogaaday ku dhaqankeegina lama waayaba marka dadku inay diinta ku dhaqmaan nabi culimadu leeyihiin iimaan baa loo baahan yahay qofku diin inuu sheegana aqoon buu u baahan yahay qofku inuu diin baro dad wuxuu u baahan yahay cilmi laana cilmi loo mamada wax bari kara
laakiin qofku inuu diin isagu ku dhaqmo iimaan buu u baahan yahay. zamankaas aan ka soo hadlayna qarnigii koobaad kii labaad kii saddexaad maxuu nabigu yidhi qurunta qarniyadaaba ugu khayr badan qarniga koobaad uma ka ku xiga laana qarniga ummadda seeska laga dhisay seeska iimaankoogaa la dhisay aqoontoodaa la dhisay akhlaaqdoodaa la dhisay dhaqankoogaa la dhisay